madaxda halkan isugu timid dhammaantood gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Waraabe gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex oqaasha gudoomiyihii hore degmada Ballimataan iyo ku-xigeenkiisii madaxda cusub ee la soo magacaabay gudida sahan barwaaqo dhammaan shacbiga iyo dumarka halkan isugu yimid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay runtii waxaan uga barayaa in maamulka cusub horta xilka u fudaydiyo waa mas'uuliyad ilaahay baynu dhamaanteen uga baraynaa insha Allah taala inuu ilaahay xilka u fudaydiyo waxa kale oo u mahadnaqayaa maamulkii hore aadan iyo ku-xigeenkiisii runtii shaqo weyn qabtay ku soo hagaagay waqti degmadu ay cusub tahay abaar jiraan doorashooyin jiraan doorkii ay ku lahaayeen hanaqaadka degmadana runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa degmadan sida la wada sheegay waa degmo runtii loo aasaasay inay qayb muhiim ah ka noqoto horumarka gobolka Maroodi Jeex iyo shacbiga halkan degan oo ah runtii shacbi xoolo dhaqato ah xoolihiina imka ka baxeen inay magaalo u noqoto degmisiyo cusub u noqoto iyadoo ka warhaysan halkan barakacyaal fara badan oo qoysas fara badan inay degan yihiin insha Allah taala kuwii iyagana nolosha cusub la qabsada Allah ka dhigo ayaan oran lahaa degmadan Ballimataan markii ugu horeyseen maqlay waxay ahayd 1989 anigoo yaroo dagaal la socdaan baa geelayagii subax hore aan waayo saleeyay degmo Ballimataan la yiraahdo u arooreen taana subaxna laga siin jiray degmada waxaan jeedaa geela markaasaan waa dhulku wajiiraan maana iyadu markaasaan leeyahay ceel aan gurin oo dhanaan baa ku yaala degmada insha Allah taala in biyaha laga helay waan ku rajo weynahay ceelkii dhanaan geelu ka cabi jirayna de runtii ay isugu yimid jireen ma guur jireen marka insha Allah taala riiga waxa ka ilaahay ka bariyaya inuu noqdo kii deegaankan iyo dadka ma ku filaada waxa imkaynu soo marnaan ka soo weecanay runtii wadada 30 kilomitir in ku dhow deegaankeena waxa baabiyay wada laan marka boorka la is cararay gawaaridu cararto deegaanka dhan uu dhimanaya marka insha Allah taala khadar iyo teamkan waxaan insha Allah halkan kaga caawin doonaa bal inaynu survey sameeyno hadaan hay'adii wadooyinka in hoos timaado bal in wadadu Ballimataan mustaqbalka ilaahay baa waxayna siin doonaa halka wada u soo mari karto wada carakaawo la dhigo inaynu surveygeeda sii sameeyno oo runtii wadada salaxli ka soo weecatay insha Allah taala intaana gudidan ku caawin doonaa inay survey free u sameeyaan hadii Allah yiraahdo كمان فديسان dhalinyaro haday tahay mas'uuliyiinta deegaanka ka soo jeeda wasiirkii hore haday tahay Faysal haday Cali Waraabe haday tahay mas'uuliyiinteeda kale dhamaantayo in degmadan lagu ku istaagto iyadoo kala qaybsanayn oo tan koonfurta ka xigta iyo tan iyo tawaqooyi ka xigtaba hal magaalo ah inay helaan horumar iyo iskuul iyo waxbarasho dadkuna waa isku mid sida la sheegay marka laga tago dawaaba hal qoys marka inay midoobaan maamulkii ku midoobaan wax walba wadaagaan oo identity islaamnimadii reer Somaliland hadii laga sii taga hadana jilibkii hoose isku sii yihiin intaaba hadii la sii dhaafo la sii qaybsamo nolol ma jirayso marka waxaan runtii ku boorinayaa in dhamaantii dadka Ballimataan degan walaalatiin ina gacmaha isqabsataan markaas wax taransan kartaan runtii waxa kale aad iyo aad runtii ugu mahadnaqaya khadar oo xirsiye gudida halkan ka shaqeysta hadaynu nahay deegaanadan ciida gale ilaa berigii xaaj cabdi dawladnimada uu la shaqeyn jiray tuulooyinkeen waxay u jireen waa la iibsanayaa horta Ballimataan waxay ka nabad gashay waa la iibsanayaa dadkoodii way aamineen aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaya qaar baa imka xadka ku yaala dad tira riig baan idii wadaa waxay oranayaan mashruuc weyd ku soo qaatay marka hadda khadar iyo aaminteen waa arkaysa resultiga keeneen annaguna taasaan kula shaqeynay dadka madaxda ah ee ama aqoon-yahanka idinku meeyda ka damqanayaan waa halkii laga soo jeeday waa halkii yaraantii la yimid sida uu nooshiinu bay ka warwarayaan nin maanta idii baahan oo Ballimataan wax ka dayaya ma jiro marka sida uu la qabsateen oo soo dhaweyseen deegaanadii kalena ugu horeysaan salaxayda qadiimka idinka ka soo dhaweyn wanaagsan aad iyo aad baan runtii ku mahad celinaya wassalaamu